xaflad ballaaran oo ujeedadeedu ahayd xadhigka jarista qaybta hore ee dhismaha macadka deegaanka Shansha iyo dhagax dhigga dhismaha masjidka macadkaasi uu yeelan doono ayaa ka dhacday dhismaha cusub ee macadka deegaanka Shansha ee koonfur bari ee gobolka Togdheer waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha jaamacadda Laga Sheikh Dr. Faysal Maxamed Ali odayaasha iyo culimada deegaankaasi ganacsadaha hirgeliyay dhismaha cusub ee macadka Shansha Abdiqani Awil Xuseen iyo marti sharaf kale waxaana kamid ahaa kelmadihii laga jeediyay goobtaasi marka taariikhdu tahay 4 bishii shanaad 2018 waxaan joognaa magaalada Shansha gaar ahaan halkii uu markaa ka socday dhismaha macadka Shansha ee diiniga waxaana markaa insha Allah maanta aanu u nimi halkan laba hawlood hawsha koowaad waxa weeyaan dhagax dhigga masaajidka uu macadku yeelan doono oo markaa lagu dhagax dhigay doono lacag ay waqaftay Maryan Xaaji Cawad Faarax Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaanu uga baryaynaa waqafka masaajidka ay markaa ku baxsatay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala u barakeeyo qaybta labaad ee aynu u nimi waxa weeyaan inuu la wareegno dhismihii macadka qaybtii koowaad ee aynu dhagax dhignay bishii hore aynu dhagax dhignay ee markaa loo waqfay Xalimo Cismaan Ducaale oo ah hooyadii dhashay markaa Abdiqani Awil Xuseen dadka deegaanka reer Shansha ay dhamaantood wada garanayaan labada hawlood inaynu markaa dhismaha dhamaadeen la wareegno dhismaha cusub ee masaajidkan aynu dhagax dhigno ayaynu maanta halkan u nimi waxaanaynu ugu horeysiinaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala labada qole ee markaa waqafka markaa loo waqfay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu miisaankooda xasanaadka ugu kordhiyo dadka kale muslimiinta inay ku daydaan gaar ahaan dadka deegaanka iyo dadka muxsiniinta ahi dhamaystirka maxadka iyadoo ay wali ka hadheen qaybo fara badan oo markaa dhismihiisii kamid ah oo ay hadheen fasalladii qayb kamid ah oo ay hadheen maxaan idhahday deyrkii guud iyo dhamaystirka masaajidka oo aan lacagtan hadda la waqfay ku dhamaystirmaynin hawshaasaynu nimi haddana waxaan markaa hadalka siinayaa Abdiqani Awil Xuseen oo markaa ah waaqifka dhismaha hadda dhamaaday qolihii markaa maamulka iyo daarada markaa macadkii hawlwadeennadiisa ahana ay la wareegayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahadle maanta isugu keenay halkan waxay ahayd taariikhdu 7 Maarch markii aynu maxadkan dhagax dhignay maantana waa 5 May marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahadda iska leh marka anigu waxaan iminka ku wareejinayaa insha Allah ta'ala maxadka oo mas'uuliyadiisa iyo hawshiisa hayn doono oo insha Allah aynu ku ogaan doonaa sheekh magaalada Abshir Caabi Cabdille insha Allah ta'ala Ilaahayna waxaan ka baryaynaa subhanahu wa ta'ala ujeedadii iyo marka qorshaha aan ka lahaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala iga aqbalo idina ay ugu duceysan insha Allah ta'ala ajarka iyo xasanaadkana Ilaahay waalidkii gaarsiiyo insha Allah ta'ala aadna waxaan ugu mahad celinayaa dadkan deegaanka reer Shansha ee maxadka yimi ee u heelan in Ilaahay subhanahu wa ta'ala dartii markaas ay kor ugu qaadaan diinta waxaan dadka muslimiinta oo dhan insha Allah ta'ala fariin u diraynaa inay dadka soo wada qayb qaataan qaybtan masaajidka wada waqaftay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala jirkeeda ka siiyo cidii kale muxsiniinina ay ka soo qayb qaataan maxadka dhismihiisa haddana waxaynu kelmad kooban siin doonaa iyadoo deegaanka inoo dambeyn doono Dr. Faysal Maxamed Ali oo ah gudoomiyaha jaamacadda Najaax ee markaa Burco oo isaguna insha Allah kelmadiisa dhiirigelinta halkan markaa ka waran doona ugu horeyn Ilaahay subhanahu wa ta'ala khayrka inoo waafajiyo waxaan soo nimid waa amal runtii khayri ah aad iyo aad u qiimo badan oo islaamka dhexdiisa qiimo weyn ku leh arrinkaas oo ah laba waqaf dhamaaday oo Abdiqani Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka aqbalo uu waqfay oo ugu talagalay waqafka ajarkeeda inuu hooyadii u waqfo iyo masaajidkan oo iyadana gabadh kale ay waqaftay labada khayrba Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu horeyn Ilaahay ka aqbalo Ilaahay subhanahu wa ta'ala meeshay ka soo saareen wax ka khayr badan Allah ugu bedelo cidda ay waqfeen ay ugu talagaleen Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyagoo qubuurtooda ku jira Ilaahay ha ugu geeyo Ilaahay qubuurtooda ha ugu geeyo miisaankooda ha u yeelo Ilaahay subhanahu wa ta'ala dunuubtooda ha ugu dhaafo Ilaahay subhanahu wa ta'ala sadaqada Ilaahay dartii loola baxay Ilaahay subhanahu wa ta'ala naasir maan ha uga dhigo oo qabrigooda ay ku intifaacsadaan maalinta qiyaamo ay ajarkooda helaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka aqbalo cid kasto u saciidayo wax ku darsatay oo fikrad ka geysatay oo dhagaxa la soo qaaday wadana wax ku darsatayna Ilaahay ajarka ka siiyo Ilaahay ajarka ka siiyo Ilaahay dhamaanteen ayna barakeeyo wa maalin jimca khayr badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala khayrka faraha badan isku beegmay إلهي سبحانه وتعالى هنا قاقبه إلهي هنا قاقبه
qofka bini'aadanka islaamku wuxuu ka dhigaa qof nool oo adduunyadana camiri karaya wax ka qabsan karaya wax taransan karaya ummadiisa wax uga tagi karaya iskuulka imika cabdiqaniyalka ka dhisay waa shakhsi isagoo shakhsiya ayuu dhisay shakhsigaasi waxa laga yaabaa lacagta yar ee laga yaabo $10,000 iyo wax ku dhow inay noqoto halka maanta geliyay waxa ay nafcigeesa inay ajyaal qaadima ajyaash soo socota dadaan imika wali la abuurini inay ku intifaacaan taas waxay ku tusaysaa marka qiimaha waqafku leeyahay inaga waxa in badan mashquuliya maalmeedka iyo inta wax baynu bixinaa laakiin waxaanu bixinaynaa waa waxaan soo dhaafin maalinta qof baahan oo wax la siiyo mar la qoodiyo raashin loo qaado xanuun haya waxa way dhakhtarka laga bixiyo waa khayr laakiin waa khayr halka ku eg oo bartaa ku inqitaacaya midna waa naas irmaano waqafkaasi inta halka ka taagan yahay ciid ka soo baxayso ciid quraan ku dhiganayso ciid ka aflaxayso ajar baa uga socda waaqifkii iyo kii loo waqfay labadaba ajar baa uga socda marka qofkaasi wuxuu noqonayaa qof mujtamaciisiina wax ku soo kordhiyay kow ummadiisii anfacay laba aakhirana waxa weeye wax kaga horeysiiyay dee waxaanu nahay maamulkii waxa weeye maxadka marka waxa weeye cabdiqani cawil xuseen waxa weeye maamulkii maxadka haddii ilaahay ka dhigo waxa weeye waanu la wareegnay waanu ka gudoonay waanu la wareegnay waxaan ugu ducaynaynaa dee waxa weeye hooyadii uu waqfay waxaan ugu ducaynaynaa in waxa weeye ilaahay subxaanahu wa ta'ala xalima cismaan in ilaahay waxa weeye ajarkeeda iyadoo qabrigeeda ku jira ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa weeye uu siiyo miisaankeeda xasanaadka waxa weeye inuu ugu daro isna waxa weeye dee waxa weeye dee waa ducooyinka sidii waxa weeye xadiiskii sheekhu akhriyay waxa weeye waxa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yiri dee camalka ibn aadamku waxa weeye uu shaqaystaa ugu go'aan markuu dhinto saddex wixaan ahay waxa kamid ahaa oo xadiiska ku jiray walad saalixa waxa weeye qofka waxa weeye ama u soo duceeya ama waqti waxa weeye u sameeyay kaasagana ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ugu rajaynaynaa dee in waxa weeye sawaabkeeda iyo abaalmarinteeda waxa weeye isna ilaahay uu siiyo waxaanu yara idaafeyn lahaa masaajidka waxa ku jira lacag ay bixisay racwi axmed xaaji maxamed caraale oo deegaanka ah baa wax kule iyaduna ay ku jirta uga dhigo ilaahay qabrigii jannada cabdina uu ka dhigo ilaahay weladkii saalax ahaa ee ifka uga soo ducaynayay xasanaadka uu baxsadayna ilaahay gaarsiiyo hablaha kale ee halkan iyana waqafka ka baxsadayna sidaas leeg baan ugu ducaynayaa dhammaan dadka waxaan kula talinayaa qofkii haddaad gashato xoog iyo haddaad xoolo gashato iyo haddaad hadal gashato mid walba waa xasanaad kuu soconaya deegaanka Shansha ayaa ka mid ah deegaanada gobolka Togdheer ee horumarka weyn ka sameeyay dhinaca waxbarashada diiniga iyo maadigaba inta badan goobaha waxbarashada ee ku yaala deegaankaasi waa kuwa ay hirgeliyeen dadka deegaanka oo kaashanaya qurbo joogta ka soo jeeda deegaanka Shansha isla markaana bixiya kharashaadka ku baxa barayaasha wax ka dhiga deegaankaasi Cali Daahir Maxamed Boos Burco.